aniga waxaan caabudaa shaydaanka. subxaan allah waxa uu sheegayaa inuu caabudo shayaadiinta magaciisu waxa uu ku sheegayaa axmed kaafi cabdulaahi ak muuqaalkeenna ayaan saaxiibayaal ku eegi doonaa wiilkan sheeganaya inuu caabudo shayaadiinta xaaskiisii hore oo ka tagtay islamar ahaantaana ka aaday cadhiga dalka Mareykanka ayaa sheegtay in had iyo jeer ay u gadi jirtay maandooriyaha loo yaqaano xashiishka islamar ahaantaana sida ay ku celcelin jirtay isagoo ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya. weydiimahan ayaan saaxiibayaal muuqaalkeennan ku eegi doonaa. muuqaalka la garee intaan u guda galin warbixinteennan oo subscribe saar channelkeennan Ducaysana Media gambaleelkan uu furo ku mahadsanid daawade. kulanti haboon saaxiibayaal meel kasta oo aad ka joogtaan dunida daafaheeda ku soo dhawaada muuqaal cusub oo aan kaga hadli doono wiil sheegay in uu ka baxay diinta islaamka isla mar ahaantaana uu caabudo shayaadiinta. xasbunallah waa muuqaal argagax leh dhammaanna ka yaabiyey Soomaalida isticmaasha baraha bulshada. wiilkan timaha ay u marsan yihiin kalarka nuuca cadaanka isla mar ahaantaana isku ekaysiiyey shayaadiinta ayaa waxa uu sheegayaa inuu ka baxay diinta islaamka isla mar ahaantaana uu ku biiray diinta maasooniyadda. haddaba wiilkan sheegaya in uu ku biiray diinta shayaadiinta ayaa waxa uu leeyahay anigu waxaan caabudaa shayaadiinta waan ka baxay diinta islaamka xasbunallahu wa ni'mal wakiil. leef ayuu ku jiray saaxiibayaal balse dadka qaar ayaa waxa ay sheegayaan inuu cabsan yahay isla mar ahaantaana uu isku soo harqiyay wiilkan maandooriyaha nooca loo yaqaano qamriga. haddaba xiskiisa miyaan joogin ayuu sidan u leeyahay mise diinta islaamka ayuu ka baxay waxa uu qaatay diinta maasooniga. saaxiibayaal muuqaal TikTok uu live uu ka soo galay wiilkan isla mar ahaantaana dhalinyaro kale ay ku jireen ayaa waxa uu ku sheeganayaa inuu ka baxay diinta islaamka isla mar ahaantaana uu qaatay diinta maasooniga. haddaba muddooyinkan dambe dhalinyaro qaar ayaa waxaa la arkayaa inay ku faanayaan baraha bulshada inay ka baxeen diinta islaamka xasbunallahu wa ni'mal wakiil isla mar ahaantaana ay qaateen diinta maasooniga oo shaydaanka ay caabudaan. haddaba ila daawo kilibkan yar uu isagu ku cadaysanayo inuu kaga baxay diinta islaamka isla mar ahaantaana uu qaatay diinta maasooniga. aniga magacayga waxaa la yiraahdaa axmed kaafi cabdulaahi ak wiil Soomaaliyeed ahay wiil qalbi fiican ahay wiil nolol kala duwan oo waqti kala duwan soo maray ahay diin kasta oo dunidan ka nool aaminsanahay laakiin especially diinta aan aadka u aaminsanahay waa diinta maasooniga waa diinta illuminatiga. runta idin sheegaya aniga waxaan caabudaa shaydaanka. especially for you guys you have to be careful. if haddii aan damco maanta sida the other peoples and Americans like the way they using like aan u dhaqmo you will suffer all of you guys you will you guys were suffering great doontaan. geesta kale muuqaal iyana ay ka daba keentay gabar la sheegayo in ay tahay isaga xaaskiisa ayaa waxa ay ku sheegaysaa in dhammaan familkiisa oo idil blog uu wada saaray isla mar ahaantaana ay ku jirto dadka uu blogga saaray hooyadiis isaga dhashay ee 9 bilood caloosha ku waday. xaaskiisa ayaa sidoo kale waxa ay sheegaysaa in markii ay joogtay gudaha magaalada Nairobi ay iyadu gacanteeda ay ugu gadi jirtay maandooriyaha nooca loo yaqaan xashiishka oo wiilkan uu isku harqi jiray. haddaba ila dhageyso codka gabadha uu isagu qabo oo leh waxaan u gadi jiray xashiish balse waxaan arkay caawa isaga oo leh waxaan ka baxay diinta islaamka xasbunallahu wa ni'mal wakiil. waa game soo ciyaari gamekiisa waa soo dhameysay gameku waa ku soo baxay waa imaadi asagoo baashaalooy wiilkoo kala u fuuli bas ninkan halkoo marle maxaa ku soo boodi ana idin waso kulligiin Soomaali ana saan idin yeelo ana hada waqti asaga hadalkiis bati arki waa way ani maxaa day baby miya hashiishka ma isku badisay as maxaa ka qaldan oo kale aadi naftirka ana ku waso hay aaday maxaa ka qaldan ko maxaa malay inaa khamri isaga isticmaaloy bas waa dhageensadii adalkiis waa dhageensadii waa u fuul si kasta u sabsabi meel kasta ugu galay waa sabsabi ninkan hadalku wali waa kasi adkaysan yaale
mar waa isdejinaa hadalkii raadina mar waa i raadinaa maskantiis dhaxdiisa ay raadinooya yaa waa i raadinaa waqti asaga isoo helo alxamdulillah waqti ana isoo helo waqtigaas ay dhaa ani hiwaaq waxay kusoo xireen anaa waso waxaasaa dhahaa haddina kus yar leeway bum haddina nawigiin anisa astafurla kooxlee daldal maabaaye bas diinkale ukasoo qur'aanaa u shidi laayifka dhaxdiisa qur'aan uga shidi tag dadki dhanaa tuuri laayifka dadki dhanaa ka saari ninka ani waa ninkan adaa kaa cabsoonaye wac wayde aabbahe waqtigii way aabbahe naftirkiis waa la aflagaaday adiba naftirka anaasaan ku yeelaa oo kale hay hooyadiisaa waci hooyada haddii soo gashay teleefonkiisa iina waa laga daray hisaabta kulligayna waa laisku dardaray ma intee wax ka qabanaynaa baay kulligayna anaga waa ka muuqaalkeenan laagare oo nagu soo bir saaxiibay oo nagu soo bir channelkeenan ducaysana media subscribe dheh ku mahadsanid daawade